aqoon-yahanka dhabta ahi waa shaqsiga intaan ogsoon kuna dhaqma. kow dadka ha eegin sabab la'aan, kama helno marka qof aanan aqoon u lahayn nagu dheegago. labo marka laguu sheekaynayo si xushmad leh u dhegayso, hadalka ha ka dhexgelin, hareerahana ha fiirfiirin. saddex marka aad dad wax la cunayso, calali cuntada iyadoo uu afku kuu xiran yahay. afar isku day inaad dhammayn karto cuntada aad cunayso, inta soo hartay cidna ma rabto wayna khasaaraysaa. shan marka aad dhowr nin meel ku wada joogtaan ee gabar idinsoo hormarto, ha ku dhaga hadlina ama ha ku qoslina. haddii aadan joojin karin sidaas, ugu yaraan iyada codkaaga ha maqashiin. lix iyadoo uu qof kula socdo, marka aad si kedisa ula kulanto qof kale oo aad adiga uun garanayso, keligaa ha la sheekaysan ee isku day labada qof inaad isbarto. toddobo sanka faraha ha gelgelin ugu yaraan marka aad meel caam ah joogto. siddeed marka aad teleefoonka ku hadlayso meelaha dadku joogaan, fadlan hoos u hadal. sagaal marka aad hoteelada cunto ka dalbanayso, si dabacsan ula hadal mudallabka ama qofka dalabka kaa qaadaya, isaguba waa qof adiga oo kale ah oo dareen buu leeyahay. ha is odhanin lacag baad bixinaysaaye sidaa doonto u dhaqan. toban ugu dambayn waajib uga dhig naftaada inay barato kelmadahan: waan ka xumahay, iga raalli ahow, mahadsanid iyo fadlan. naftaada qiimee oo bal dib u eg inaad qodobadan ku dhaqanto iyo in kale. shahaadadu waa warqad waxaana muhiim ah edabta iyo anshaxa qofka. haddii uu soo gaaray qodobo cajiib ah oo lagu soo ogaaday cilmu nafsiga. kow raggu waa ay isku bogaan marka ay la joogaan gabar xiisaynaysa, halka dumarku aysanba isku bogin. labo dadka xanaaqa badan waxa ay mar walba isku maleeyaan in xanaaqoodu uu xaq yahay oo laga qaldan yahay. saddex dumarka buurbuuran waxaa inta badan guursada ragga mashaqaystayaasha ah ama bilaa camalka ah. afar qofka aad jeceshahay uma xanaaqsanaan kartid wax ka badan 3 maalin haddii ay dhacdo qofkaas wax jacayla uma haysid. shan ragga muuqaal ahaan quruxda badan inta badan ma lahan wax xiriir ah ama waaba ay ku fashilmaan. lix qofka mar walba faagfaaga dadka ceebahooda waa qof fashil badan dareemaya iyo in uu qof hooseeyo yahay. toddobo laba qof oo wada taagan haddii mid ka mid ah uu qabto qofka kale gacantiisa, waliba halka u dhaxaysa suxulka iyo garabka, qofkaasi waxa uu ilbiriqsigaas isu muujinayaa sarrayn iyo isla weyni. daraasad aan sameeyay ayaa waxaan ku soo ogaaday in muddooyinkan uu TikTok igu dhagan yahay. asxaabta waxaan idinka codsanayaa inaad koobi linkiga ii taabataan. mahadsanidin.